Ku soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha. Halka kala socota waa Cawaale Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeennana waxaa ka mid ah: waxaa soo dhammaaday wareeggii gurubyada isreebka koobka adduunka. Waa kuwii wadamada u soo baxay koobka adduunka. Kooxda kubadda cagta Liverpool oo Wardle u soo yeedhay. Waa kii ciyaartoyga kale haddana ka dhaawacmay. Kooxda Arsenal iyaduna war aan ka farxad gelin ka heshay isreebka koobka adduunka ee qaaradda Afrika. Milkiilayaasha Liverpool oo sii balaadhinaya boqortooyada ciyaaraha naadiyada ay gacanta ku hayaan. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Waxaa soo dhammaaday wareeggii gurubyada isreebka koobka adduunka qaaradda Yurub, iyadoo la xaqiijiyay xulalka ku dhammaystay kaalinta koowaad ee gurubyada, kuwaasoo si rasmi ah uga soo baxay koobka adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar. Waxaana ugu dambeyn Yurub ku soo baxay xulalka Netherlands, kuwaasoo ku soo biiray xulka difaacanaya koobka adduunka ee France, Germany, Denmark, England, Belgium, Croatia, Spain, Serbia iyo Switzerland. Kuwaasi waxaa wadamada sida rasmiga ah gurubyada kaalinta koowaad kaga soo baxay una soo baxay koobka adduunka ee qaaradda Yurub. Sidoo kale labada wadan ee kale iyaguna xaqiijisay booskooda ee Latin America waxaa ka mid ah Brazil iyo Argentina. 12 wadan ayaa imika xilligan si rasmi ah uga soo baxay koobka adduunka ee Qatar lagu qabanayo 2022. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa xalay lagu wargeliyay inuu dhaawaco mid ka mid ah ciyaartoydooda kaga maqnaa kulamada caalamiga koobka adduunka, kaasoo garoonka laga saaray markii uu dhex fadhiistay uu socon kari waayay daqiiqadii 70aad ee qaybtii hore, lana bedelay weeraryahanka Belgium ee Origi kadib markii uu ka dhaawacmay muruqa, kaasoo sababay in xitaa qaybtii hore uu dhammaysan kari waayo. Liverpool ayaa marmar kasii dambeysa u soo kordhiyay ciyaaryahannadeeda liiska dhaawacyada oo marmar kasii dambeysa sii badanaya. Weeraryahanka Arsenal ee Moyes ayaa walaac ku abuuray taageerayaasha kooxda ka hor kulanka Sabtida ee la ciyaarayaan Liverpool ee horyaalka Ingiriiska. Qaybta caafimaadka Arsenal ayaa calaamad su'aal saartay ahaanshaha laacibkan kadib markii uu waqti hore ka soo laabtay xerada tababarka ee qarankiisa Gabon kadib jug ka soo gaadhay kulankii Liibiya ee Jimcihii ayaa laacibka lagu qaaday gaadhi xambaarka, waana mid sii xoojisay walaaca laga qabo kulanka inuu safan kari waayo iyo in kale. Milkiilayaasha Liverpool ayaa sii balaadhinaya boqortooyada ciyaaraha iyo naadiyada ay gacanta ku hayaan, waxaana wadahadal qarka u saaran yihiin inay sii iibsadaan mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn adduunyada. Fenway Sports Group oo iska leeyahay John Henry oo ah milkiilaha Liverpool ayaa waxay Khamiistii wadaxaajood gunaanad ku dhow la bilowday mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dunida, taasoo ay ku iibsanayaan lacag lagu qiyaasay $600 milyan oo geni. John Henry ayaa shirkadiisa Fenway FSG Group oo dad kalena saamiye ku leeyihiin waxay sanadkii 2010 iibsatay kooxda Liverpool oo ay ku iibsadeen $300 milyan, oo kala wareegtay labadii mulkiile ee wakhtigaas ee George Gillett iyo Thomas Hicks. Markan ayay shirkaddu sii xoojinaysaa saameynta ay ku leedahay ciyaaraha, waxaana la wareegaya mulkiyadda kooxda Pittsburgh Penguins oo ka mid ah naadiyada ugu waaweyn ee dheela kubadda barafka ee qoriga lagu dheelo sida xeegada oo kale ah. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ku eegayay. Asxaabta nala joogta, fadlan leegta iyo sheerta noogu dara si uu u faafo barnaamijkeennan una gaadho bahda jecel ciyaaraha. Asxaabta nagu cusub, fadlan subscribe noo saara. Barnaamijkeennii intaas ayuu ku eegayay. Mahadsanidin.